Love is a beautiful thing created by God. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد يوتيوب channel كيني قصولجي. ما أنت وحنو كهالنا وح الله يقانو التنس كمية اللي بيتبنكي التنس أي ككوبنايين وح الله يقانو جرامر كإنجليزتا. سيمبل برستي التنس أما وح الله يقانو الزمن المضارع البسيط. وبرسنتي صنع نقطة أما وحوي فعل صنع نقطة مرولبا. ويه هذا وح الله يقانو فهم أما عربي هنا هتي الله يقانو تكوين فهم وحوي وحوي ككوبين هي برسنتي سيمبل تنسكو. usage واستخدام يعني وحيابها الله استعماله. waxaa loo isticmaalay samin المضارع البسيط waxa jira waxyaalo kooban oo la tilmaami doono sidoo kale formiska uu ka kooban yahay ama takwiin waxyaabaha uu ka kooban yahay way maanta kaaseen falaqayna waxaan rajaynayaa 10-ka ku dhowdhow inaad si wacan uga bogan doontaan walibana waxa jirta mulaaxadaad badan ama waxyaabo dheeraadiya oo hadhow ka hadli doono way haddaba hadaan gudaha u gallo waxa ugu horeeya takwiinkiisa ama foomka waxyaabaha uu ka kooban yahay baan ka hadlaynaa marka hore waxa qasaba inaynu garanayno in kastoo casharo hore ku soo dhignay subject waxa loo yaqaano ama subject oo noqda badanka baran noqda ama si guudba baranonka waxa loo yaqaano inaad kala garanayso baranonku laba qaybood buu noqdaa baranon ay raacaan bularanon ama ismil jamac sida children iyo student imika children student markan ismka jamcinaynay ama jamc ka dhigaynay waxaan isla ogeyn qaybo badan buu maray oo maaha kii est la raacinayay ee waa kii ay qaar ay isu bedelayaan waxaa kamida xuruftiisu sidoo kale waxa jirta singular noun ism mufrad yaani labadoodii baa la kala qaybinayaa qaybta hore qayb jamc ism jamca badan ka raacaya you iyo we iyo they say u badan yihiin laakiin sida halka ku aragtaan waxa ku qoran carabi ahaan damaa'irtii carabta damaa'irtii carabida ahayd oo walibana kuwii loo yaqaanay dhamirul munfasil oo ana anta antum nahnu hum hunna humma iyo sidoo kale saddexdan singular mufrad ism mufrad raacaya iyaguna waa mufrad oo damaa'irtii qaybka ahayd baa ku qoran sida huwa hiya haddaba hadalka nuxurka intan kale waxa weeye qoladan hore afarta waxa raacaya clean verb wax loo yaqaan sida like pizza imika we like pizza I like pizza you like pizza they like pizza waxaas oo dhan waxay jecel yihiin pizza clean verb waxa la raacaya clean verb waxa weeye waa verb aanay dabadiisa waxba la raacin waxa raacaya waa maxay waa s e s oo ku caan yahay waxa loo yaqaan simple present tense xagga marka la joogo saddexdan mufradka ama baranonka mufradka sida he she it oo carabi ahaan noqonaya huwa iyo hiya iyo it oo la qayl aqal ama waxaan aqal ahayn loo isticmaalayo oo huwa iyo hiya ba ka kooban nin iyo naag maqan isagu s ba raacaysa ama waxa loo yaqaano most basic verb oo waxa raacaya s sida asalka oo wuxuu noqonayaa he likes pizza she likes pizza it likes pizza inaad fahanteen ma filaya yaani saddexda hore waxa raacaya clean verb oo verbkooda like waxba raaci maayo like sida inaguna waa stative verb ama afcaal al-khabariya carabi ahaan hadii eegno dhankan kale verbkii s ba la raaciyay imika wuxuu yiri afartii umad ku tusaaleynaysa they speak Arabic maarta they get up early xil hore kacaan carabi ku hadlaan dhankan kale marka la aado saddexdii he iyo she iyo it oo noqonaya carabi ahaan dhamayrul qaib ama huwa iyo hiya waxay yagi s ba raacaya imika it speaks Arabic it gets up early xil hore kacda it works in a bankiga ka shaqeysa he works in a bankiga ka shaqeeya it inkastoo dal qayr aqal taa aan loo isticmaali karin laakiin tusaale ahaan dhankan kale wali waxa loo isticmaalayaa sidii they work in a bank I have a car dhankan kale marka la aado have marka saddexda mufradka la joogo horeen 10ka u soo dhignay has bay qaadanayaan marka he has a car she has a car it has a car wuxuu markuu mufrad yahay ama singular na uu yahay xaalad way kala duwanaanayaan baranoonkii dhanka yaala iyo baranoonka dhankan yaala saddexda mufradka wixii mufraday qaadanayaan markay half taagantahay has bay qaadanayaan markay dhuu taagantahay das bay qaadanayaan sidoo kale waxa la raacaynaya basic verbki oo st iyo est ba raacaya waxa jirta wax loo yaqaano oo jumladu ka kooban tahay this person singular imka halka waxa ku qoran he marka loo eego baranoonkii qaybihiisa wuxuu yahay third personal singular ama darfu salis al-mufrad jumlada wuxuu ka kooban yahay xale marka la eego baranoonkii wuxuu kaga jiraa daraf salis mufrad waxa loo yaqaano yaani sidee casharkan ku fahmi doonaa ina marsha imika ninka halka ku aragta ayaan tusaale ku bixinaynaa
ay haddaad aragto waxa loo yaqaano pronounka maxaa ugu horeeya ay waxa loo yaqaanaa first person ama dharful awwal imika yani hadalka jumlada taniska la dhisayo ay hadii lagu bilaabo waa first person qofkii ugu horeeyay hadlay ama dharful awwal you oo ah kan ku xigana second person baa loo yaqaana marka qof adigu dhan la hadlayso way you da qof baa la hadlaysa ama hal qof ama jamac baa la hadlaysa dharful thani baa loo yaqaana ama second person marka pronounka la kala qaybinayo way ka ugu saddexaad imika qof marka ka hadlayso muqaa'iba he imika huwa oo kale way ali ama he hada subject noun caadi ama he seegto waa third person ama daraf salis imkan ka waramin waxaan rajaynaynaa si wacan u fahanteen waana soo qori doonaa shaashadan soo saari doonaa laakiin si guud waa inaad fahansan tahay qofku markuu iska hadlayo inay saddexda qaybood u qaybsamayaan waa kan ana ku sameeyay table qaybahan ayaan u kala noqonayaa kow first person waxa loo yaqaan ama darful awwal iyo sidoo kale second person waxa loo yaqaan ama darful thani sidoo kale third person waxa loo yaqaan ama darful salis yani waxa uu kala qaybsanaya pronounki dhankan waxaan ka dhiganaa singular pronoun singular iyo pronoun plural ama mufrad ama jamac sida carabi ahaan way hadda imika halkaas aan ku kala qorinaa darful awwal waxa loo yaqaan first person wa ana ama ay dhinac isagoo jamacana waa wi yani markuu ay jamac yahay ila ay waa mutakallim carabiya marka la eego wuxuu noqonayaa wi oo naxnu marka laba qof iyo wax ka badan ka hadlayso dhanka kale second person waxa noqonaya isagoo mufrada ama isagoo kaliya anta iyo anti oo carabi noqonaya yudi sax marka bular ahaan ama jamcaan la aadana yu booskeedu waxa u dhigmata antum ya antunna ya antuma oo noqonaya muqaddabkii munfasilka ee marka la joogo xaaladda nasbada ee damaa'irtii munfasilka ahayd oo yuuna noqonaysa isla yuugii waa soo noqonaya halka dhanka kale uu yagina noqonayo si personkii isagoo mufrada oo qaa'iba hi iyo shi iyo saddex jeer isla socda oo noqonaya carabi ahaan hiya iyo huwa oo idkuna la qeyr al-aaqil oo ay soo noqonayaan dhanka kale they ayaa booskoodii galay oo hum iyo huma noqonaysa inaad ila fahanteen baan filayaa qoladaas way fiidowgan waad ku celeeshan kartaa haddii doonaysa inaad fahanto way haddaba waxa loo yaqaan hadii fi'ilka ugu dambeeyo double s ka ama c h ama sh ama o ama egas haday ugu dambeeyaan fi'ilkii waxaan ku korinaynaa waxa loo yaqaan es goorta fi'ilka waxaan ka hadlaynaa fi'ilka isbeddelay waa fi'ilkii simple present hadii taniska galay dhankii baan u kala saaraynaa marka hore maxaynu sameeynaa aydi iyo yudi iyo wiidi daydi maxay ahayn dhammaan jamacii bay ahayn qoladii clean verb ku raacay bay ahayn tusaalayaashii baan ku bixinaynaa clean verb ka maadaama clean verb raacayo verb ka imika bas oo kale ee double s noqday qasab maaha in est la raaciyo maadaama aynu nidhi afarta hore ee pronounka waxay qaadanayaan waxa loo yaqaano clean verb oo dabadooda xol lagu dari maayo imika bas iyo wash iyo teach iyo go iyo do dhammaantood clean verb bay dabada ka noqonayaan oo dabada waxa laga raaci maayo halka taa bedelkeeda egas oo mix yaduna sidoo kale ay ahaanayso taa bedelkeeda es hadaba muxuu galaya es waxay galayaan verbka saddexda qura pronoun u galo ama noun ahaan uu galo he iyo she iyo it sida imika bas dhankii kale markaan u rogno est isagii baa la raacinaya basis washes teaches go goes do does mix hadalkayga inaad fahanteen ayaan filayaa pronounka afarta hore clean verb waxa la dhahay qaadanaya yani verbka dabada waxa laga raaci maayo halka dhanka kale he iyo she iyo it oo ah kuwii mufradka ama waxa loo yaqaan kaleriga dabadooda la raacinayo waxa loo yaqaano est la raacinayo sida caadiga asal waxa uu ah s oo inay ka soo waranay he likes marka state verbka ku soo tusaareynay laakiin marka labaad ay es qaadanaysa xaaladda es qaadanaysa waa xaaladda way hadaba wuxuu ku leeyahay markuu verbku ku dhamaado when a verb ends in a consonant markuu verbku ku dhamaado consonant plus way yani koolatan consonant xurufta alifaatada Englishtu waxay noqonaysay shan faawalaba iyo koolatan consonant waxa looga jeedaa xarf saakin yani xarf caadiya oo ah b c d f ilaa ya sarinta lagu joojinayo dhanka kale yani qoladaas markay meesha ay taalo ee way ka dambayso maxaa la raacinayaa ies waydii baa loo bedelayaa ies yani qaabkii un qaacidadii un baa lagu dhaqmayaa afartii hore pronounka marka isticmaalayso qasab waxa kugu ah in verbka aad dabada verbka aad raacinaysa inuu clean verb noqdo oo aan dabadiisa waxba la raacin sida try student study carry play dhanka kale qoladii pronounka ee mufradka he iyo she iyo it markay noqonayso iest baad raacinaysaa imika try way baa ugu dambaysa waxa ka horeeyana waa xarf saakin ama koolatan consonant wax loo yaqaan waydii baa meesha laga saaraya ies baa la gelinaya halka imika saad ku aragtaa tries
studies, cries usoo noqonaya qaabka inaad ila fahanteen maan filaya wayda halka talo imika waxa loo bedelay IES maxaa yeelay waxa ka horeeyo waxa loo yaqaan collateral consonants laakiin hadii taa bedelkeeda wayda uu ka horeeyo wax xaraf kamida vowelski ama xuruful illa uu ka dambeeyo xuruful illana shan bay ahaayeen oo qaabka article-ka aan idin muujiye hadii uu wayda uu ka horeeyo xaaladdu way isbedelaysa IES lama raacinayo s qura ayaa la raacinaya maxaa la qoranayaa plays oo ciyaaraya inaad ila fahanteen ma filaya saddexdii xaaladood ee simple present tense la bedelayay ee loo la raacinaya xaaladaha inay yihiin saddexda pronoun oo hore waad ila fahanteen haddaba hadii aan waxaan ka nimi form ama takuun waxyaabo ka koobnaa imika waxaan aadana usage ama istiqdaam waxyaabaha loo isticmaalo waa afarta xaaladood adoo ku dabaqaya wixii uu ka koobnaa formkii ayaad haddana maxaad raacinaysaa usage waxa ugu horeeya repeated action routine and habits ama ahdath mutakarrira routine wal aadat يعني waxyaabo soo noqnoqonay action dhacdhacaya ama routine habits waxyaabaha mar walba soo noqnoqda su'aalaan maalin walba waad kacdaa lixda su'aalaha ayaan ku fahmi doonaa waxyaabaha ama usage ama istiqdaamka labada loo isticmaalo waxa loo yaqaan fact general truth xaqaa'iq waxyaabaha xaqiiqada ku rukuma ama xaqiiqada ku tacalluqa ayaa loo isticmaalaa simple present tense adoo ku formiski ama takuinka uu ka koobnaa aan qaacidadiisa ka beeran شيء صدحات الله استعماله وفيلين opinion and thought يعني مشاعر الآراء والأفاكير استاتي فيب من أفعال الخبرية الله يقانا قارب ونقن دونا استاتي فيب وح الله يقانه والضبطة أيون إنك قصوا بحدونا لكن إن اللي فهمت ما فيليا فيلين opinion فكرتها كإمادة مشاعر تضريمة يصيدوا كله أفكارته thought سيدوا كله واحد وجود ضمن schedule event in the future أحداث مجدولة في المستقبل waxyaabo dhici doona oo wali dhicin laakiin jadwalaysan oo yaani adeysan waxaan oo dhan tusaalayaasha ayaan ku fahmi doonaa waxa ugu horeeya repeated action routine and habits ama ahdath mutakarrira routine wal aadat tusaalayaasha ku bixin doona yaani ficil dhaca oo soo noqnoqda mar walba ama routine aadad soo noqnoqota mar walba routine maalin walba isticmaasho waxa ugu horeeya tusaalaha I get up at 6 am yaani waxa weeye waxaan kaca I get imika up waxa noqonayaan subject isla socda I sida caadiga waxa weeye I get up baa noqonaysa subject get up at 6 am waxaan kaca 6 subaxnimo maalin walba we go shopping every weekend week kasta waan soo dukaameysana sida halka ku aragtaan verb-ka go iyo get up labaduba waxa ka horeeya waxa weeye qoladii afartahayd ee baranonka ahayd ee dabadooda clean verb uraacay hadii feeb ka dambeeyo sida darteed waxba ma raacinayna iyaga markan qaacidadii formkii tagwiinka eegano hadana waxa ay get up at 6 am waxa ka muuqata inuu qofkan subax walba kaco 6 صح we go shopping week kasta inaan soo dukaamaysto inaan soo dukaameysano ayaa ka muuqata laakiin waxa ka dambeeya she drinks coffee at breakfast qaacidadii takwiinka ama formiski in ay dabada wax laga raaciyo iyadoo lagu dabaqayo maadaama ay ka mid yihiin saddexdii pronounka ee kaliga ama mufradka اسبال الرأي ما دام حرف وجود بيكيه هاي she drinks coffee at breakfast حلقة نص ساعة وحي أبتاع كوفي he plays إنه قاعدة كده بقينا ما دام يهاي way consonant فاول كهريو وحو عيارة كبدة score كبدة مركز اللغة الإنجليزية نك إنجليز مريكان يحيو كلا قيسمان إنجليزك عيا scores لدها قيب طلبات وفكتس واحد الله يقانا أما general truth حقائق وحكر ركومة أما كو تعلقة حقيقين the human body concise 206 bones تصار على سوقاتي واحد كده حانسا معنا هان وحنا ندكو درايا أما أفرتن لو استعماليه هلك دنك كلي أتكو طبقيسو قاعدة دي إمك the human body واحد كده كانت وسبتشكي يعني شركة بالآدم كو contains فيبكي محو قادني اس ما دام it the human body wuxuu dhigan yahay it oo saddexdii mafarta kamida contains wuxuu ka kooban yahay verb-ka s baa la socota maarta waa simple present tense 206 bones 206 lafood buu ka kooban yahay waa xaqiiqo inuu ka kooban yahay sidoo kalena qaacidadina waa lagu dabaqay the moon gas around the earth dayaxa waxa uu ku wareegaa ama qoraxda wuxuu ku wareegaa baan sheegayaa dhulka imika sida halka aragtaan the moon it boski it buu ku jira waa subject sidoo kale feebka go est baa la raaciyo waa lagu dabaqay marka la eegayo qaacidadii halka la eegayo usage-ki loo isticmaalayna lagu dabaqay oo maarta sad aragtaan
Markin drives a taxi. Mark wuxuu kaxeeyaa gaari ama taxi buu kaxeeyaa. Sida halka ka aragtaan drive buu ahaa feebku marka hore. Si simple present tense looga dhigo waxa lagu dambeeyay s. feebka simple present tense-ka waxyaabaha ugu badan ee dabada ka raaca markuu yahay saddexda kaliya maadaama markii he uu u dhigmo oo noon caadi noqday waxa qasaba in is la raaciyo hadii waxyaabaha ka soo haray exceptions noqonaya ama istisnaa'aad noqonaya wuxuu noqon karaa in IES noqoto oo feebka way ugu dambeeyo ama ES feebkii loo bedelo shantii la idin soo qoray ay ugu dambeeyaan halka imika sidaan idin calaamiyay drive isa ku qoran feebka ujeedada laga leeyahay waxa weeye in S la raaciyo markina uu booskii he ku jiro maadaama saddexdii it iyo he iyo she ay noqonayeen kuwii dabadooda uu raacayay basic feeb waxa loo yaqaano ee aanu clean feeb raacin imika clean feeb baa raacaya I life imika waa feeb waxaan ku noole waxa ka horeeya waa ay waa kuwii qaadanay clean feebka sida aanay isugu xadgudbeen waad ka aragtaa iyadoo qaacidadii lagu dhaqmayo ayaa haddana waxyaabihii loo isticmaalayay loogu dabaqayaa shayga saddexaad wuxuu ahaa feeling opinion and thought stative verb مشاعر الآراء الأفكار أما أفعال الخبرية يعني طريمة إن مشاعر الآراء وحوية طرين فكريات أما وحلا يقانو ثوت أفكار ستاتي فعل أفعال الخبرية وحوية فعل كسيد عادي أكشن بكهلا لكن واحد يتب فعل ستيت أما حالات كهلا قول هذا صار يقانا ستاتي فعل تصالحان أما إكسامبل كو she feels sick واحد دريمس حنون إن الحنون دريمس قاعدة واحد كل حكيته feebka feel s baa la socota oo qaacidada baa la dabaqay hadii feebka xaaladaas ay timaado in s dabada laga raacinayo oo dhanka sababta s loo raacinayna uu yahay saddexdii kaliga ahaa ama mufradka pronounki mufradka oo she yahay dhanka kale marka la eego wixii loo isticmaalayay waxaad ka dareemaysaa feelings waa dareeme mashaa'ir al-aaraabin sidoo kale I need help waxaan doonayaa caawin sidoo kale feebkii need waxa ka horeeya waa ay oo qoladii clean feebka qaadanaysay sidii aanay isugu xadgudbeen wad ka eeganaysaa ka horena waa she kan dambana waa ay sidoo kale they like basketball waxay jecel yihiin basketballka waxa ka horeeya uu ku biloomaya subject uu ku biloomaya waa they sida darteed clean feeb buu qaadanaya like imika way qayaxanta wax la socda ma jiraan oo dabada ka raacay he wants feebka he wants he ba ka horeeya sida darteed s baa la raaciyay a cup of tea koob shaha buu doonaya we are happy we waxay qaadataa sidoo kale clean feeb oo feeb to be gada halka yaala ee are wax asala ma socoto dhanka kale happy waa adjective ama waa sifo we are happy ana waa faraxsana I think he is angry waxaan u maleynayaa inuu cadhaysan yahay think waxay kamid tahay waxa loo yaqaan stative verb yani stative verb kuma dhigan doonaayo shan qaybood buu kamid yahay waxa shanta qaybood kamid ah mentally wax maskaxaan looga fakarayo marka think waa fikir sida darteed isna verb to be yadu kamid ah wixii verb to be badanka wuxuu noqdaaba stative verb ama afcaal al-khabariya marka 10 kale ku dhigan doona laakiin tusaalaha ayuu soo dhaxgalay I think he is angry waxaan u maleynayaa inuu cadhaysan yahay shayga labaad ee shayga afraad ee loo isticmaalo waxa loo yaqaano simple present tense marka la joogo iyadoo qaacidadiisa lagu dabaqayo ama takwiin formskiisi iyadoo usagekiisa ama isticmaalkiisana loo eegayo waxa weeye schedule event in the future ahdaas mujadwala fil mustaqbal waxyaaba dhici doona laakiin inoo jadwalaysan tusaale ahaan the train leaves trainku wuxuu tagayaa tonight caawa at 10 o'clock 10 habeenimo waa wax dhici doona laakiin waa wax qoran oo 10 waa wax mujadwala ama schedule jadwal ku fadhiya inuu tareenku 10 habeenimo tagayo waa simple present tense iyadoo feebkiina lagu dabaqayo ay s feebkii ugu dambaysa sad aragtaan the train uu yahay subject tareenku wuxuu tagayaa caawa 10 habeenimo sidoo kale the bird starts at 8:00 PM xafladu waxay bilowmaysaa 8:00 sida halka ka aragtaan birds waa feebkii maxaa la raaciyay s baa la raaciyay oo qaacidadii baa lagu dabaqay halka dhanka kale ay halka aad ka aragtaan schedule event in the future waxa weeye in wixii la cayimo waxba mustaqbalka dhici doona la kuma la cayimaya sida halka ku aragtaan holiday fasaxeenu starts wax biloomaya in June waa la cayimay in June bishaas inuu bisha dhacayo waxay ka dhigaysaa inuu feebkaasi yahay simple present tense oo waliba qaybtiisa schedule eventiga uu yahay the festival ends on Tuesday Marta wuxuu dhamaanayaa ends feebka endi s baa la raacinaya qaacidadii baa lagu dabaqaya casharka inaad ila fahanteen ayaan rajeenayaa sababtoo ah haddii aan isna mid u dul istaaga waqtiga ayaa naga dhacay waxa jira waxa loo yaqaan art verb of
frequency ama sifaat tikraariya sifooyin soo noqnoqda sifooyinkan soo noqnoqda maxaa tihiin sifooyinkaas soo noqnoqda badanka way inaad iska qabsataa fiican si meelaha markay kaaga soo warbaxaan casharada waayo lagu gudmaraya always waa badana waa 100% waa daa'iman usually waa sida caadiga ama 90% buu noqonaya hadii loo eego tirada percentage-ka often waa sida qaalibka 70% buu noqonaya hadii tirada percentage-ka ku eegno sometimes waa axyaanan ama marmarka qaar wuxuu noqonayaa tirada percentage-ka hadaan ku eegno 50% rarely waa sida wax naadira 10% weeye wax naadira never waa wax aan weligeed la helayn waa abadan hadii tiradii percentage-ka ku eegnana waa percentage waa ever marka qoladaas waxa loo yaqaan adverb of frequency ama sifaat tikraariya sifooyin soo noqnoqda yani qoladaas dhamaantood waxay ka hadlayaan ilaa ay ever ka gaarayaan ilaa percentage-kii ugu sareeyay dhamaantood hoos bay u socdaan imika tusaalehan I always take the bus to work badana waxaan raaca baska si aan shaqada u aado he is always late badana he is always late استالا راعينيا ما قولدي فيبك لوغ لما جيد استان waa اس la socota imika sida halka ku aragtaan qabla الفعل الاساسي ama ficilkii main fabki marka English ahaan la eego buu ka horeeyaa imika take waa main fab fab waxa uu qaybaa main fab ya auxiliary fab dhowr qaybo laakiin main fab waa fabka caadiga sida take oo kale uu ka horeeyaa ama adverb of frequency way ka horeeyaan oo subject-giya wuxuu u dhaxaynayaa main fabki imika I always take waa main fabki always na waxa weeye waxa loo yaqaano sifaat tikraariya waxa ka horeeyana waa subject-gi ama waa faacilki dhankan kale halka kalena he is always maxaa la sameeyay light waa fab to be-gi caadiga buu fab to be-gi caadigaana uu ka dambeynaya main fabka caadigaana uu ka horeynaya weeye qaacidadu I drink coffee every day imika salka ku aragtaan every markasta every day way isla socdaan muxuu ka horeynaya main fabka caadiga uu ka horeynaya oo day maarta coffee every sidoo kale every waxay macna la tahay markasta weey carabi ahaan waa kullu every year he goes to France sanad kasta wuxuu aadaa France ama Faransiiska ayuu noqonayaa carabi ahaan every wuxuu noqonayaa kullu dhammaan way inaad ila fahanteen ayaan filayaa adverb of frequency ama sifaadka soo noqnoqda ama adjective ka soo noqnoqda hadii mar dambe ay ka soo horbaxan war haysataa dhamaantood su'aalayaal buu soo bixinayaa laakiin inagu casharka halkaas ku joojinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh laabtayda wuxuu harsaday habeenkii doonisto hurdada dadka kale u furan naftani ma haysato hagaag uma seexato barigeesadaan ballankoola badanaya
hadalaadka cawatada hawaykumaan iraade talowma calaade caqligaagu keeno kuman caasiye nabe hadad qaato calankeen kuman caasiye nabe hadad qaato calankeen noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbiyaa